الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أيها الأحبة ugu horeyn raalliga noqda waa idinka habsaamay waqtigii mala dadka la belamay waqti aan hayn baan imi laakiin duruuf naga baxsan uma ku habsaamay. marka labaad bidaaya limuxaadaratina ama bilowga muxaadaraadkeena waxaan rabaa inaan ka dhigo mowduuc ku saabsan dacfi liimaan. waayo dadku waxaa lay sheego laga cabanayaa dacfi akhlaaqiya ama dadkii markay dhulka gaaleed yimaadeen in milan jiro ama dhaqanku inuu sii lumayo ama diintu sii lumayso ama ay cidhiidhi gelayso ugu yaraan oo bulshada ay mashaakil la kulmayso. laakiin su-aasha isweydiin kale waxay tahay maxaa sabababa? ugu horreyn ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون في سورة إبراهيم. رمضان آيادود كتيرة إلهي سبحانه وتعالى وحلي وحي إلهي تصالين كدقية tusaalayaashu qur-aanka akthar min 40 mathal baa ku soo arooray. 40 tusaale ama maahmaahood ama shay lagu mathalayaaba soo arooray. ilaahayna wuxuu leeyay watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun. waa maahmaahayaan idiin sameeyey laakiin dadka caqliga launbaa wax ku qaato oo fahma. shay xisiya iyo shay macnawiya yacni wax material la taaban kara ah iyo wax abstract ah yacni wax maanka gala. ashyaada maanka gala bini aadamku hadduu hore u fahmi waayo waxaa tusaale loo siiyaa shay material oo la arki karo. yacni macallinka wax dhigaya maalan hadduu model keeno uu ku tusiyo ku yidhaahdo waa kan isku si dadka waxay u fahmaan baa la yidhahaa qofka caqliga badan leh iyo qofka caqliga yar leh iyo ka intelligentka iyo ka moralka isku sibay markiiba u fahmi karaan. haddii laakiin la sharxo caag baa la yidhaahdaa biyaha lagu shubaayo furyaro lagu xidhaa buu leeyo qofba maskaxdiisa waxbuu sawirayaa wixii aan u dhadhaweyn ama suuradday dadku wada helayaan isku mid noqon mayso. laakiin haddii practically loo tusoo la yidhaha waa kan flas baa la yidhaha macaag baa la yidhaha waa kan biyaha lagu shubaa caynkan dadku markiiba way fahmayaan. idan waxaa xisiga ah tusaale marka lagu bixiyo macnaheedu waxa weeyaan in la soo dhoweeyo fahamka si dadku ay wada gartaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuuna leeyahay kelmadda dayibka ah kelmadda wanaagsan culimada waxay ku fasireen ay tahay kelimatu tawxiid laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah. kelmadda dayibkii waxay la mid tahay baa ilaahay yihi geed ama geed asalkiisu dhulka uu ku taagan yahay faraciisu iyo furuucdiisuna cirka ay jirto midhaha bixiya wakti kastaba tuuti ukulahaa kulla xiinin biidni rabbiha. yacni iimaankii waxaa lagu misaalay inuu geed la mid yahay. geedka waxaa lagu sheegay inuu asalkiisu haabit yahay inuu sugan yahay. dhirta waaweyn oo kale dhirta qaar baa xididadoodu 30 mitir socdaan marka waa geed sugan baa la yidhi oo laama leh oo laamihiisu cirka jiraan oo midho bixiya. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanahu wa tacaala wayadribu allahu lamthaala linnaasi lacallahum yatadakaruun. maahmaahyaha ama tusaalahaas baa ilaahay idin yeelaya oo dadka u yeelay si ay wax ugu qaataan baa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala. haddii iimaanka la yidhaahdo waa geedka waxaynu naqaanaa inuu asal leeyahay jirid leeyay xidid leeyay kadib laamo leeyay
laamuhu caleen ay bixiyaan kadibna midho ka baxaan. geedku markuu caafimaad qabay uu noocaa u yaallo mandar la daawado quruxle buu leeyahay, flowerkiisa iyo wixiisa bixiyo, hoos la hadhsado oo dadku hadhgalaa buu leeyahay, midho la cuno la dhadhamiyaa buu leeyahay. haddiise aafaadku ay ku dhacaan, dhibaatooyinku hadday dhirta ku dhacaan, waxaa dhacda in caleentu daadato, inuu qaawismo, inuu midho bixin waayo. mararka qaarkoodna waxaa dhacdaba in dabayluhu ka xoog bataan oo legdaan, mararka qaarkoodna waxaa dhacdaba inuu engego oo uu wax jiro oo noolba inaanu noqonin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayay iimaanku inuu sidaas iyo kale yahay. haddii qofka muslimkaa iimaanku uu biyo dhigay, caqiidadu degtay, qanjaha uu joogo iimaankiisu goormuu qanjaha joogaa? waa markuu adilo cilmiya ku salaysan yahay, cibaadana weheliso, ilaahay xuskiisuna ku badan yahay. hadduu qofku iimaanku xadkaa soo gaadho, waxaa la tilmaamaya inuu midho leeyahay, anfac inuu leeyahay. anfacu ma aakhira? maya, anfac dunawiyana wuu leeyahay, mid aakhirana wuu leeyahay. iimaanku markaa adduunkaynu joogna waxbuu ka taraa, aakhirana waxbuu ka taraa. haddii la waayo anfaciisa dunawiga ah, macnaheedu waxa weeyaan iimaanku waxaanu ahayn kii kaamilka ah, ama xadkii laga rabay inuu ku midho dhaliyo ayaanu midho dhalin. waa geed biyo waayay oo kale, ama abaarsaday oo kale, ama mushkiladu soo haleeshay. maxaa ka mid ah waxa uu dunida ku dhalo? ilahay baa qur-aanka inoogu tilmaamay. maalan ilahay wuxuu leeyahay adduunka inta la joogo hadduu iimaanku sax yahay, wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin baa ilahay yidhi. korka iyaga waxaa saaran baa ilaahay yidhi inaan u hiiliyo dadka mu'miniinta ah, nasriga inay helaan, guusha inaan siiyo. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. ilaahay isagaa difaaca kuwa iimaanka laga helay. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay allahu waliyu aladiina aamanuu. ilaahay weli buu yahay. weligu waa yacni naasir, ama ciddii u hiilinaysay. ama mithaal maanta dowladaha yaryar ee dunida ka jira, haddii dowlad ka mid ah dowladaha waaweyn ama nato ay tidhaahdo xilfi wadaag istraatiijiya baanu leenahay, dowladdayna way faraxda, waxay is tidhahdaa dee lagu soo dhowaan maayo, ila ciidamadii naataa kugu xeeran. duu maraykanku yidhaahdo waan ku ilaalinaya, waa ku farxaya. ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala anaa weli u ah aladiina aamanuu, anaa u hiilinaya kuwa iimaanka laga helo, ama arrintooda anaa maamulayo tawalinaya. ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahay hadduu iimaanku dhab yahay, hidaayay dadku helaan. hidaayadu waa inaad ahdaaftaada ama gooliskaada, waxa aad raadacaynayso, inaad ku hanuuntido waddada tooska inaad qabsatid. wa in allaha lahaadi aladiina aamanuu ilaa siraatin mustaqiim. ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dunida aynu joogno in la makansiinayo ama gacanta loo gelinayo kuwa mu'minka dhabta ah. saa daraaddeed baa qur-aanku wuxuu leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wa camiluu الصaalixaat. ilaahay wuxuu u ballan qaaday wa wacduhu lxaq, yabohiisuna waa dhab. aladiina aamanuu minkum, kuwii iimaan laga helay idinka mid ah, kow wa camilu الصaalixaat, camalka suubanna sameeyey. labadaas sharti haddii laydinka helo, ilahay wuxuu leeyay layastakhlifannahum fi lard. dhulka wuu khilaafadiisu u dhiibayaa, iyagaa dhulka madax ka noqonaya. waxaa kaloo ilaahay tilmaamay kama stakhlafa aladiina min qablihim, sidii kuwii iyaga ka horreeyeyba dhulka khilaafadiisa loogu dhiibay. waxaa kaloo ilaahay leeyay walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum. waxaa kaloo ilaahay makansiinayaa ay xoog u yeelanayaan diinta ilaahay raalli uga yahay. waxaa kaloo ilaahay leeyay walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna. waxaa ilaahay ugu bedelayaa cabsidooda nabadgelyo. su-aasha isweydiinta le waxay tahay intaasoo dhan baa ilaahay aayaddan ugu ballan qaaday.
aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay walow ana ahla alkitaabi aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard. dadka magaalooyinka degani baa ilaahay yidhi haddii laba shay laga helo iimaan iyo alla ka cabsi haddii laga helo waxaan u furi lahaa baa ilaahay leeyay barakaatin min alsamaa'i waalard. cirka iyo dhulkaba barakada waxa manfacale ku jiraan siin lahaa baa ilaahay leeyay. wixii khayr ugu jiro ayaan cir iyo dhulba ka siin lahaa. waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahay sharafta iyo ciziga iyo maamuskay leeyihin walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin. waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahay subxaanahu wa tacaala man camila صaalixا min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba. ciddii camal wanaagsan samaysa rag iyo dhadig kuu doonaya ha ahaadee lab iyo dhadig midkuu raba ha ahaadee isagoo mu'mina camalka wanaagsan sameeya nolol fiican baa noolaynayaa adduunka inta la joogaa ilaahay tilmaamaya adduunka inta la joogo. haddaba su-aashu waxay tahay aakhiro haddii la tagana ilahay wuxuu yihi in aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati kaanat lahum jannaat اlfirdowsi nuzula. kuwa iimaanka iyo camalka suuba laga helay jannada firdowsa ayay soo dhoweyn u leeyihiin nusul meelay degaan. in aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati lahum jannaat naciim khaalidiina fiiha wacd allahi xaqa wahuwa alcaziizu alxakiim. kuwa iimaan iyo camal suuba laga helay jannooyinka lagu raaxaysta bay leeyihiin. qur-aanku saasuu sheegaya. wadciga mu'miniinta maantana muxuu sheegayaa? qur-aanku saasuu sheegay. qur-aanku wuxuu leeyahay iimaanka iyo camalka saalixa haddii aa heshaan aakhira intaan laisla gaadhin adduunka inta la joogo waxaasaa helaysaan. laakiin maanta dunida haddaynu eegno macnaheedu waxa weeyaan meeshii dad lagu dilayaa waa meel muslim, meesha la cabsanaya waa meel muslim, kuwa qaxaya waa muslimiin, kuwa aan dunida magac iyo maamuuska ku lahayni waa muslimiin, kuwa laga xoog batay waa muslimiin, kuwa aan loo helini waa muslimiin. xaggee wax iska qaban laayiin marka? xaggee wax iska qaban laayiin baa umalaynaysaa? qur-aankiina waa sidan, innaga dhaqankeeniina waa sidatan. maxaa isweydaarsan? ugu horeyn in allaha laa yukhlifu lmicaad. ilaahay yaboohiisa ma beeniyo. that's one thing. qur-aanka waxaa ku sugan waa dhan ilaahayna yaboohiisa ma beeniyo. waa mar labaad dadkii tajribeeye hore way heleen oo muslimiintu 1000 sannadood bay keligood ahaayeen addawla alula fi lcaalam. ma aha qarni iyo 2 iyo 3 ma aha 1000 years bay keligood talinayeen. 4 qarne ama 5 qarne danbay jabeen, laakiin 1000 years saaxadana waxay ka baxeen qarnigii 20aad. 4 qarne xataa 3 qarne hore dad jiray ahaayeen, laakiin qarnigii 20aad marka la soo gaadho ayay saaxadaba ka baxeen. haddii 1000 sannadood ay ku talinayeen oo iyagoo yar maalan saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam maanta intan muslimka sheegatay inta ugu badani waa intii saxaabadu furatay ee ay gaadhay iyagu diinta gaadhsiiyeen. maxay haysteen? waxay ahaayeen niman reer baadiye ah oo carbeed oo qabaa'il isu dila, waa nabada dhexdooda oolin, oo weligood dowlad yeelanin, oo dhulkooda inta ugu fiican labada dowladooda waaweyn ee dunida ka jira ay gumaysato. eeraanna siwaad alciraaq iyo intan oo dhan iyo yamanna eeraan baa isku haysatay. sham iyo intanna romanska ka talinayay iyo masar iyo intaana romanska haystay. barasaabo yaroo carbeed baa jiray oo meelaha ka taliyo iyana kala raacsan labada dowladood.
intan dhexe xijaas la yidhaahdo ee muslimiintu ka soo baxeenna lama degay ahaydba, meel aan laguba noolaan karin oo noloshu qeyr ku jirto ayay ahayd. haddana dadkii reer baadiye ahaa ee lamadegaha ku noolaa ee caynkaa u noolaa ayaa mar qura isu bedelay inay noqdaan akbar quwa fi lcaalamka jirta. bini aadam inala mid ay ahaayeen, bini aadam inaga xoolo yar bay ahaayeen, bini aadam inaga tiro yar bay ahaayeen, bini aadam laba dowladood oo waaweyn oo dunida ka taliya ku xeeran bay ahayen, bini aadam laga askar badan yahy, laga hub badan yahy, laga ciidan badan yahy, laga aqoon badan yahay xataa maadiga. matala maalintay madaa-in qabsadeen, madaa-in waa caasimadii markaa bershiya looga talin jiray, eraaniinta looga talin jiray. imaamu tabari wuxuu soo aroorinayaa gurigii boqortooyada markay soo galeen khubus kimis khubus bay ugu yimaadeen, yararo meesha taalla waxay moodeen manaadiil afka la yska mariyo. saxaabadii mindiil bay moodayeen wax un lagu tirtirto ee dee wax la cunaa sidaan u jirjiricsanba ismay lahayn. nimankii noloshoodu halkaa gaarsiisnayd duniday ka taliyeen. maxay kaga taliyeen? ilaahay iyagoo hiisaka, ilaahay bay u run sheegeen. kaanuu saadiqiina maca allah, ilaahay bay u run sheegeen. haddaba ayuha alaxiba, waxaan leenahay duulkii warka rabbi rumeeyey ee sidii la rabay u rumeeyey waxay gaadheen wixii rabbi u ballan qaaday. meesha markaa wax ka sii yihiin waxa weeyaan waa dhankeena, ka bulsho ahaan iyo ka afraad ahaanba. innaga waxaynugu dhacay dacfi iimaaniya. iimaanka iyo kalsoonida iyo caqiidadaynu ilaahay ku qabnay ayaa dadka badhna kaba luntay, badhna daciiftay, liidatay. dabeetana waxay goyn kari weyday wixii loo baahnaa. haddaad lacag forgery seeto miya wax lagu iibsadaa? lacag dhaba haddaad seeto si waxbaa lagu iibsadaa. iimaan forgery waxba ma gooyo. laakiin iimaanku hadduu dhab noqdo oo uu xaqiiqa noqdo oo wixii loo baahnaa uu soo baxo, it costs, waxbay goysaa. ilahay baa rabba la qaaday inay goynayso, kuwii la yimina way u goysay. su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay, iimaanku ayuha alaxiba waanu koraa, waanu yaraadaa. iimaanku yaziid wa yanqus, waanu koraa, waanu yaraadaa. iimaanku wuu koraayo, wuu xoogaystaayo, kamaal buu gaadhaa. qofku kamaaluliimaan buu gaadhaa. wuu daciifaayo, yaraadaayo qaadhaa oo engegaa ilaa xad marka dambe uu baabaaba. qofku diin la-aantu markay ku dhacayso dee maalin qura un isma kala fireeyo. maalinba inbaa milanta, maalinba in buu ka dhaqaaqaa. siduu sii wado buu tagaa maxay? ayuu zero tagaa haddaanu negative partkaba u gudbin. idan iimaanku waa wax kordhana, waana wax yaraada, waa wax xoogaysta. hadduu kordho oo qiimo yeesho wuxuu gooyaa wixii loo baahnaayo o dhan. hadduu daciifo oo liito wax badan halka kama gooyo. aakhirana allahu aclam inuu wax badan goyn dooniyo in kale. kollay wax waa goynayaa iimaanku. haddaad ku dhimato koluu naarta kaa soo saarana, aakhira duul baa iman doona iimaankooda aanu naarta ka badbaadinayn marka hore. xabsigaa loo dirayaa, jahanamay gelayaan, laakiin mudday ku jirayaan. kadib baa laga soo saarayaa oo la keenayaa maxay? jannada. markaa iimaanku si kasta u lito akhiiran qofka wuu ka saaraa cadaabka, ugu dambeyn waa ka soo bixinaya. laakiin dee dadka badh baan iimaankoodu ka celinin inay marka horeba cadaabka galaan, soo maraya in la cadaabo. haddaba dacfu liimaan waxay leenahay maanta muslimiinta waxaa haystaa. macnaheedu maaha dadkao dham inuu baabaayo, dadka dad wanaagsani waa ku dhex jira. laakiin marka bulsho la qiimeynayo laguma qiimeeyo adduunka, laguma qiimeeyo qof ee waxaa loo qiimeeyaa ka bulsho ahaan, ka umma. aakhirase marka la yimaado ilaahay wuxuu yihi furaada baa u imanaysaan mid aakhiro kaadashiyo aabbahaatana kuma daba socdaan, keligaabaa lagu xisaabaya. aakhiro waa qof iyo
wixii adiga kaaga beegnaa arrimaha maxaad ka samaysaa lagu leeyahay. haddaad adigu intaadii qabatay waad baxsanaysaa. laakiin adduunka marka la joogo waa la isku xidhan yahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay weylun lilcarab min sharrin qad iqtarab, balaayaa u sugnaatay carab buu yidhi, balaayo kusoo dhow. markaasay akhiiran waxaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam anahlik wa fiina saalixuun, ilahay rasuulkiisiyo miyana la halaagaya iyadoo dad wanaagsan oo badan ay nagu jiraan? nacam idaa kahura alkhabat buu nabigu yihi, haa hadday bataan inta xumi. yani majority-gu hadduu noqdo dadka liita waad halaagsamaysaa. majority-gu hadduu dadka fiican noqdona waad guulaysanaysaa, walow ha kuguma jiro dad xumiye. bulshadu maray wada malaa'ig noqotaa ma jirto. xataa tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tirayay munaafiqiin baa ku dhex jiray. cabdillahi ibn ubay iyo kan iyo munaafiqiin baa ku mid ahaa. laakiin afraad bay ahaayeen. marka loo eego bulsho ahaan waxaa badnaa maxay? bulshada khayrka qabtaa badnaa. walidalik buu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu dacfiga jamaacigaa tilmaamayay, yuushaku lumamu an tadacaa calaykum, waxaa la arkaa buu nabigu yihi in ummaduhu isugu kiin yeedhato sida dadka xeedhada lihi ay isugu yeedhaan, dadka sabta lihi sida sabtiyo allabariga la ysugu yeedho in la ysugu kiin yeedhaabaa la arkaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. saxaabadiiyo dee xilli ay guulaysteen oo rag ah ay ahaayeen bay joogeen. markuu nebigu warkan u sheegayna warkaas wuu la qallafsanaaday, waa fahmi kari waayeen. ma inta aanu dunidu isugu kaaya timaadaba nala boobaya. marka iyaga caqligooda waxa suuradda qura uu siiyey waxa weeyaan, talow miyaad tira yaraanaysaan markaa? ma intaad dadkiiyo bataan ayaa idinkuna wax yar noqonaysaan oo dee waxaa yar baa laydinku boobayaa. markaa waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo min qilatin naxnu yowmaid, maalintaa miyaanu yarnay? ma tiradayadaa yar? dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal antum yowmaidin kahiir, maya maalintaa waa badantiin buu nabigu yihi. tira yari ma jirto, waa badantiin. walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl buu nabigu yihi, aa badnaateene daad xoortaa la mid tihin buu nabigu yihi. daad xoorta waa daadku markuu socdo xashiishka iyo xumbada iyo xoorka iyo wuxuu sido. daad xoortu wasfigeedu ama sifadeedu waxay tahay, waa waxaan meel u socon, halka biyuhu qabtaan ubay qabataa, iyadu meel gaara kuma socoto. daad xoortu waa waxaan miisaan lahayn, kama hadhi karto biyaha sidaya. daad xoortu waa wax geedkii soo maraaba uu badh kala hadho, laantii yaree biyaha soo dhex gashaaba in bay xashiishka reebtaa. macnaheedu waxa weeyaan wasnigii iimaaniga habaydaan yeeleemaynin. waa tiro badantiin laakiin waxaad tihiin qashin weeyaan. waa tiro badantiin laakiin afkaar kale iyo caqaa'id kale iyo wax kale idinka buuxiya mabaadic kale. waa tiro badan tihiin laakiin macno badan samayn maysaan. markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walayaqdifana fii quluubikum alwahn. waxaa caan ahaan jirtay waktiga hore muslimka dhabta waa laga cabsan jiray, yacni nin lagu soo dheereeya ma ahayn. wuxuu nabigu yidhi cagsigeeda waktiga kan gaaladu idinkaba biqi mayso. wixii baqaal la odhan jiray gaalka waa laga saari doonaa. idinkana cabsidaa la ysugu kinkeen, idinkuna wahniga iyo dacfigaa idinku dhici doona. waxay yidhahdeen ilaahi rasuulkiisa iyo wahnigu waa maxay? dacfiga dadka ku dhacaya. kelmadda wahanaya inuu way yaqaaneen af carabi, waa niman carbeed, laakiin waxay garagari laayeen wahniga waxaa la yidhaha intuu dadka fuulo ay dadkii nooca noqonayaan muslim oo dhamay. wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xubu dunya wa karaahiyat lmowt. aakhira ay laabi doontaan, adduun jacayl iyo geeri nacayb baa idin soo geli doontaa. miisaankiina waxaa wax ku qiimaysaan aakhira iyo abaalmarkeed uu ka bixi doona. kalaa bal tuxibuuna alcaajila weeyaan, tan degdegta badan laad jeclaan doontaan, aakhira iyo warkeedana waa iska nici doontaan. saasha isweydiinta le waxa weyaan xadiidkan uu nabigu sheegay iyo qur-aankii uu alla sheegay labaduba waa dhab. qur-aanku alla sheegay wuxuu inoo tilmaamanay haddii iimaankeenu uu xadkaa gaadho inaynu guusha helayno.
waxaanu nebigu inoo sheegay haddaynu daciifno noocan noqonana inaynu saatan noqonayno balu fiirsa caalamulislaami wadano yaryaro caalamulislaami ka mid a wixii dayuurad dunida joogto o dhan la isugu keenay nin waliba leeya maanaan garaaci karin alcaalam kullu nin waliba hubkiisuu tijaabsanayaa bal mid cusub bay warshadu soo saartay inuu toos u dhacayo intuu dili karayo dad daaraha inuu dumin karayo dhulka magoyn karaya nin waliba wuxuu haystuu tijaabinayaa ilaa real life baa loo baahan yahi marka wax la tijaabinayo dunida o dhan baa isugu timi waa wixii dayaarad dunida joogto o dhan inta la keenaa la garaacaya wixii hub dunida yaal o dhan baa lagu garaacaya waalcaalam kullu yatafaraj iyadoo saa loo garaacayo dadku saa u garhanayaabaa waxaa yurubna ka warramaysaa habar baa somaliland lagu dilay iyo mid soomaaliyeed baa maxaa la yidhahdaa xamar lagu gowraciyo dumarkaa lagu kufsada hadda halkan tarabtara baa loo laayaa kufsi way dhaaftay laakiin wax kalaa laga warramaya waxaan jirin baa laga warramaya waxay lahayd khadiija bint qina gabadhan ka warrantaa aljazeera ayaa waxay tihi reer waxay noo sheegayaan bay tihi maali dumarkaa lagu laayaa lagu xidhxidhaa lagu cadaabaa bay tihi suuriyana waa lagu kufsadaa soomaaliyana gaajay u baktiyaan ciraaqna jeelasha lagu guraa iyana waxay nooga warramayaan bay tihi sacuudigaa liisarka u diiday dumarka inuuna waxay ka warramayaan xorriyadii dumarkaa meel lagaga dhacayo sacuudigaa u diidaan liisanka inay dumarku qaataan yani qadiyada jirtaa maxay tahay maanta caalamulislaami wuu jabay wuxuu jabay gaalkaa xoog badan maaha naba taa maaha wuxuu jabay waxa weeyaan isagaan ahayn dadkii la rabay isagaan mustaxaq ahayn inuu ilaahay guushiisii helo walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bulsho ahaan markuu inoo tilmaamay noocaynunay ayaa waxaa la inoo tilmaamay haddana afraad ahaan qofku iimaankiisu waanu yaraadaa waanu bataa maala nabigu wuxuu ley alayh الsalaatu wasalaam ina aliimaana layakhlaqu fi jawfi axadikum kama yakhlaqu thawb اlkhaliq midkiin iimaanku wuxuu ugu baaliyoobaa wuxuu ugu gaboobaa iimaanku qalbigiisa wuxuu ugu gaboobaa sida marada u gabowda buu nabigu yihi dushiina ugu gabowda waxaynu wada naqaanaa shaarkaynu xidhanno haddaad iska bixin weyda maxaa dhacaya waa gaboobaya shaar kastoo muddo la xidhoo la maydhmaydhay aakhirka uu shaarkiisii noqon maayo muddo markaad sidato bilicdii way ka lumaysaa quruxdii waa lumaysaa waa soo dildilaacayaa kalarkaa maydhmay wax kaluu soo baxaya oo aan ahayn shaarkii shalaytaa 100 euro laga siiye quruxda badnaa ee dhalaalaya waxaan ahayn buu noqonaya wuu gaboobay nabigu wuxuu leeyay iimaankuna saasuu gudihiina ugu gaboobaa waabaad qur-aan dhigatay waabaad malcamad soo dhigatay waabaa wadaad wax kuu soo sheegay bere kitaab akhrisan jirtay dabeetana halkaa timi bulshaweynta jarmal baad ka mid noqotay waxaa la cunana waxbaad ka cuntay waxaa la cabana waxbaad ka cabtay meesha la marana waxbaad ka martay dadkaad ka mid ahaa taa macnaheedu waxa weeyaan waxoogaagii kugu jiray way sii gaboobayaan wuu sii marhanayaa ilaa iyo uu imarka kaa tagada ilaa iyo aad zero gaadhin saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyay fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum kow war ilaahay weydiista inuu qalbiyadiina ilaahay ku cusboonaysiiyo iimaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisataa haddaba ayuha alaxiba cumuumtii muslimiinta waa sida tan afraaddiina waa inagaan arkaynaa maxaynu u baahanay si aynu aakhirana u badbaadno adduunkana u badbaadno adduunka inaad badbaaddo waxaad u baahantay inaad ilaahay ku xidhanto aakhiro inaad badbaadiyo cadaabka weyn ka badbaadana waxaad ku baahantay inaad ilaahay ku xidhanto adduun iyo aakhiraba ilaahay gacantiisay ku jiraan ma cid kalaa dunida iska leh biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir cirkan iyo dhulkan iyo samadan iyo aadanaha dhammaantood ilaahay baa leh isagaana maamula waxaa laynooga baahanya markaa bini aadamka laba shay baa lumiya xanuunka ku dhaco dhan waa laba ima shubha wa ima shahwa ashubuhaat fi lcaqiida qofka oo wixii uu rumaysnaa shaki ka galo
shubahaad loo sheego, wax diinkiisa lagu shaki gelinayo loo sheego, ama shahawaatu nafs, naftu oo waxay doonayso loo sii daayo. waxaa laynoo sheegay jannadana baa la yidhi makaarih, waxyaabaha naftu ay kahataa ku weegaarsan, dadminis dadaal iyo raganimo iyo ninnimay u baahantahy. naartana baa la yidhi waxa naftu jeceshaa lagu weegaaray. dabeetana waxa la yidhi waa laydin itixaamaya, waa laydin eegayaa, lagumana qarin. haddaad naftaada controli kartidna baa lagu yidhi you will win, waad guulaysan. haddaad controli kari weydo zimaamul amr, hoggaankeeda haddaanu gacantaada ku jirinna you will lose. laakiin guushan iyo guuldarradan intay isu jiraan, midna waa guuldarro abadiya, midna waa guul abadiya. waa guuldarro abadiya haddaad naarku ku maratid, waa guul abadiya haddaad adduunkana xayaad tayiba ku jirtid, aakhirana aada badbaadid. haddaba labadan maradba yurub bay yaalleen. wadanadeennii labada marad mid baa yaalay kooban, midna maba oolin. ka shubahaadka ay qofka diintiisa laga shaki siiyaa ma oolin, waayo xaafidda kugu xigtaana muslim bay ahayd, adarkaana muslim buu ahaa, abtigaara muslim buu ahaa, magaaladoo dhame muslim bay ahayd. miyaad soomaaliya adigoo jooga weligaa maqashay waxa le nebi maxamed inuu nebiyey ma caddayn karaysa? miyaad maqashay? maya. ilaahay inuu jiro iyo inaanu jirin ma caddayn karaysaa wax ku idhaha miyaad maqashay? maya, waayo dadka o dhan baa muslim ahaa. that was not an issue ma ahayn, dhexda bulshada dhexdeeda ka jira ma ahayn. halkanse it's an issue. soomaaliyaad joogtay, waxoogaa waa jireen dad xumaha qaar sameeya, laakiin calaamadsanaa in la ydhaha ninka hebel waa nin xun, waayo war waa khamriyacab. dadkao dhan waxay odhan jireen hebel waa khamriyacab, waa nin xun. isaguna markuu cabayo waa la dhuuman jiray, yaan lagu arkin buu dee taagnaa, way labad ceeboobaysahay. gabadhaas waa gabadh xun baa la odhan jiro, waa xumaata. bulshadoo dhan waxay arkaysay gabadh xun inay tahy. halkanse tareenkan soo fuushaba laba afka iskula jiraa. wixii ay shalayto oo aada yararka ku lahayd waa xun yahay, magaalada marka loo baxo cidda waa xun yahay ba arki maysid. waddanka oo dhan ba laba cashaa la isu fasaxay, nin waliba waasho. weekendaa la yidhaahdaayo waa labadii maalmood ee waalida. markaa dadka o dhan waxaa loo fasaxay, ninkii raba inuu waashaaba xaq buu leeyahay labadan habeen inuu waasho. sharti qura gaadhi ha kaxayninu, waxna kale dad ha yeeli. dad dabadaa qodob ka soo baxdo, you have the right to be a madman. xaq baad u leedahay inaad nin waala noqon karto. duruufaadkaasaad timaadeen. waxaa u baahan tihiin halkan markaad joogtaan, markaa diin ka badan diinta halkii ku haysateen, waa ilaa waa lumaysaa. halkan markaad joogto, waayo beladaa ka badan, diin ka badan diinta aad halkaa intii aad ku dhigan jirtay ama ku haysan jirtay in ka badan baad halkan u baahan tahay. haddaad rabto to survive, inaad noolaan karto, inaad jiri karto adoo qof muslima ah, waxaad u baahan tahay cibaadada halkaa cibaadaysan jirtay mid ka badan. waxaad u baahan tahay qur-aanka aad akriyi jirtay mid ka badan. waayo dee maradaada haddii nijaas yari meel kaaga duushana waxaa laga yaabaa cagadan nuskeed inay kaa maydhi karto, soo maha. kor iyo kale haddaad nijaasawdo ka war, dee laba baaldi wax ka yara ku maydhi maaya. sacagaa maaha yani dee caagadi ku nadiif kari mayso, ilan kor iyo kal baad xun tahay. haddaad timi wadciga caynkana, waxaa u baahan tiri inaad dib u fakertaan. aakhiradiina iyo adduunkiinaba inaad dib uga fakertaan. kow, inaad dib u fakertid, iimaankaaga dhistid. mas'aladu maaha inaanay mas'aladani adilo lahayn. ilaahay jiritaankiisu balaayiin min aladilla, bale trillions bay leedahay, waayo makhluuq oo dhan baa adilo u ah. waxaynu arkayno o dhami waa min mafcuulaat illah, waa wixii creationkii ilaahay abuuray. nebi maxamed inuu nebi yahay aalaaf min aladilla baa la hayaa.
inuu rasuul nebiya yahay oo xaqa. islaamku inuu saxya intaasaa la hayaa, laakiin adigu intaad ka ogtay su-aasha waa taa. wuxuu daliil ma leeyahay maaha waxa weeye, waa adigu maxaad garanaysaa, adigu maxaad isdifaaci karaysaa. iskuol baad tegi, shaqaad tegi, suuq baad tegi, waa muctarak siyaasiya, waa muctarak, waa dagaal afkaareed baa dunidan yaalla. nin waliba nin riixayo, ama adaa lagaa soo saaraya taad haysatay, ama adaa tuu haysta ka soo saarayo keenaya maxay islaamnimada keenaya, waa labada mido. idan ayuha alaxiba, ilahay wuxuu ina leeyahay inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi huma lam yartaabuu. mu'minka dhabta ay waxa weeyaan baa ilahay yidhi aladiina aamanuu biاllahi warasuulih, waa kuwa rumaysan alle iyo rasuulkiisiiba rumaysan. kow, huma lam yartaabu, aan shakinin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, aan shaki soo gelin. muslimiintu maanta ka caam ahaan markaynu u eegno meelo badan baa shaki kaga jira oo diinkooda ka mid ah, jahliga daraaddeed. waayo maanta waxaa laga yaabaa muslimiintu inay isweydiinayso, maaha intiina halkan tima qura, inta xaggii joogtaa. haddaynu dhahno ilaahay kitaabkiisa ba lagu liibaanaya mise lagu liibaani maayo, dee su-aal baa ka taagan. socagaa maaha dad tiraa kitaabka ilahay ma laysku xukumi karaya mise layskuma xukumi karayo, shareecada ilahay ma la qaadan karaya mise la qaadan kari maayo. waxaa laga yaabaa siyaasiyiinteena iyo dad waaweyne inay yidhaahdaan, oday soomaaliyeed baa waxaa la yidhi sheekooyinkay soomaalidu sheegto, inanu dhalay buu xoolo badan uga bixiyey gabadh, dabeetana inankii baa dhintay, reerkiina dee xoolihii qaatay iyo yaradkii. intuu igu yidhi aniga waa dumaalaya gabadha, waxaa la yidhi waxaa la yidhi ma banaano wiilkaagu gabadhu guursaday inaad adigu guursataa, ma banaana. dee nin reeruya ja warana kitaaba lay dantay ma oga buu yidhi. yani aljahlu xadkaas u gaartay, kitaaba la dantay ma oga butaagay. waxaa laga yaabaa inaad kaa ku qoslaysaan, laakiin waxaynu isku raacsanay in badan oo naga mid kitaaba la dantay ma oga dimuqraadiyadda hala keeno, kitaaba la dantay ma oga nidaam. waxaynu leenahay guddi hala saaro. guddiga maxaynu u saaraynaa? waxaynu u saaraynaa inay caqli keenaan, aynu kitaabka ku bedelano. waxaa laga yaabaa su-aalaha inaydan isweydiinin, laakiin waa nafsu shay. waxaynu ku kalsooni badan nahay kasoo qaad 10 khabiiroo dunida ka mida inay yihiin 10 experts, inay dastoor inoo dejiyaan aan raad ku lahayn ilaahay kitaabkiisa, nidaam iyo system laysku maamulo aan shaqo ku lahayn. laakiin waxaynu leenahay waa maanta waa la guulaysan, waayo khubaradii baa loo saaray. khubaradii 4 professor iyo 6 expert baa loo saaray oo khubaradii. ilaahay wax ma oga miyaa baad u malaynaysaa? ilaahay basharkan abuuray, ilaahay muxuu leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir. combyuterka yari horteeda yaalla yaa u aqoon badan ninkii sameeyey. saxanka maaha, wax walba cidda samaysataa u aqoon badan. adiga yaa ku samaystay? ilaahay baa ku samaystay. idan maanta mercedes hadduu kaa xumaado, gaari mercedes ad wadata hadduu xumaado, shirkadda ugu fiican aad isleedahay si fiican bay u hagaajinaysaa waa kuwe? mercedes. waa inaad meesha mercedes gawaadhadeeda lagu sameeyo geysa. haddaad b m w sidatay xaggaad geynaysaa? ma toyota ad ugeynaysaa mise b m w ad ugeynaysaa? b m w. waayo waxaad rumaysantay iyagaa manufacturarkii, iyagaa bahalkan sirtiisa og. saa daraaddeed the best samayn karaa waa iyaga baad rumaysantay. adiga haddaba yaa ku abuurtay? yaa ku sameeyey? the best. xataa caqliga caadiga common senska bani aadamka haddaynu ku fikerno, cidda ugu fiican ee noloshaada garan karta waa ciddii ku abuuratay. cidda ugu fiican ee noloshaada garan kara, wuxuu ku suuban yahay, waxa kuu hagaagsan iyo waxa kuu xun, waa ilaahay subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu ina leeyahy fas'al bihi khabiira. ilaah khabiira wax weydiiya, expert. ilaah khabiira. khabiirku waa maxay? waa cid waxa khibrad u leh.
ilahay wuxuu ina leeyahay a antum aclamu am illah, wardadow ma idinkaa wax og horta mise anaa wax og baa ilaahay yidhi. keennay aqoon badan baa ilaahay ina leeyahy. bini aadamka aqoontiisu waa maxay? wax ilaahay abuuray siduu u shaqaynaya inaad ogaato aqoonta bini aadamku isugu faano. soo intaa un maa yani waxaa la leeyahy waa physics iyo waa chemistry iyo waa kan iyo waa engineering iyo waxa weeyaan nature-ka wax ka mid a, dabeicada ilaahay abuuray wax ka mid a ayaad ogaatay sidii waxaasi oxygen iyo hydrogen marka laisku daro inay biyo noqotaad garatay. ha markaasaa tiri biyanu samayn karnaa. wax cusub ma adigu oxygentana maad lahayn, hydrogentana maad lahayn, isku darkoodana maad lahayn. waxaad ogaatay haddii systemkaa la sameeyo inuu shaqaynayo. idan makhluuqaadka wax ka mid a all wax allaaliya waxaa la yidhahaa natural science oo dhami waa taqliid la qallido. kamarada tani waa ishoo la qalliday, say ishu wax u sawirta unbay wax u sawirtaa baasha tani. markii isha la gartay ayaa la gartay in kanna la mitaalin karayo. idan ilaaha kownkaba iskalena waxaad rumaysanta inaanu wax garanaynin. 10 qof oo bini aadam inayna wax garanayaan. ilahayna wuxuu ina leeyahay a antum aclamu am illah, wallahu yaclamu antum laa taclamuun baa ilahay isaga ka jawaabay. idinku waxba garan maysaan ee ilaahay baa wax garanaya baa la leeyahy. mise waxaynu isleenahay 10kan bini aadamka ah ayaa bini aadamnimada iyo naxariista iyo aadamnimada yaqaana. saasaa ilahay bay ka naxariis badan yihin miya? ilahay wuxuu isku sifeeyey inuu yahay arxamu araaximiin, cidda wax naxariisata cidda u naxariis badan le inuu yahay. ma waxaad rumaysantay inay ka xikmad badan yihin hadda wisdomkoodu xikmadoodu inay ka fiican tahay ilahay xikmadiisa miyaad u malaynaysa? ilahay wuxuu isku sifeynaya inuu yahay maxay? axkamu lxaakimiin. idan iimaanka markuu dacfi galay baa waxaynu qaadanay inaanu qur-aanku ina maamulka. hadda wadaad maaha, wadaad kama hadlay, wadaadku bini aadamku ka mid yihi. laakiin asalku waxa weeyaan inuu noqdo contextku waxa kitaabka ku yaala. wadaadku wadaad fiican iyo wadaad xunba waa la heli karaa. sidaa dadka kaleba mid fiican iyo mid xunba loo heli karo ayaa wadaad ilaahay yaqaan iyo mid ku xoogsanayaba waa la heli karaa. mid ay ku qalloocatay iyo mid sax u fahmayba waa la heli karaa. basharkay ka mid yihin. laakiin waxaan ka warramaynaa waxa weeyaan in kitaabka lagu dhaqmo hore loo tijaabiyo. dawladi kuma dhaqmi karta maya. 1000 sannadoodba intay ku dhaqmeen bay weliba ahaayeen dawladda koowaad ee dunida. dawladda koowaad ee dunida. idan inagoo wadanadeennii joogna ayaa diinkeena shaki inaga galay oo caqaa-idii ay noqotay waxyaabo ka mida inaynu ka takhallusno. caamadu shakigaasi ma qabaan, laakiin inta wax qorqortay baa shakigani galay. caamadu shakiga may qabaan. marka reer miyiga ee caamiga haddii la yidhahdo war ilahay baa caynka ku yidhi waa qabanaya. midhmidhka un dee caqligiisu liitele kitaaba la dantay ma oga mooyaane caamada caadii waa aqbalaya. su-aashu markaa waxay tahay ayuha alaxiba, waxaa u baahantiin inay caqaa'idiina dib ugu noqotaan. why you believe? maxaad u rumaysantay ilaahay inuu jiro? maxaad u rumaysantay inuu nebi maxamed nebi yahay? maxaad u rumaysantay qur-aanku inuu kitaabkii ilaahay yahay? maxaad u rumaysantay inay janna jirto? maxaad u rumaysantay inay naari jirto? intuba adilay leeyihin, mid cilmiya iyo mid qur-aan iyo mid science iyo everything bay leeyihin. laakiin haddaanad baranin dee waxba kama ogid. haddaanad baranin waxaad iska dhaadhicinaysaa inaan waxba ka jirin. idan waxay leenahay caqaa'idii muran maa galay iyo shaki. halkan aad joogtaanna laydin odhan maayo waxaasi ma jiraan, laakiin just a question. su-aal baa lagu weydiin doonaa lagaagamana jawaabaya. su-aalahaasi waxay keenayaan akhirka inaad shakido. ardayga inaga iskuolka gala waxaa la odhanayaa maxay iyo muslimiintu xorriyadda dumarka may rumaysan yihin. maasaa laga yaabaa tirado de ha waa ilaahay baa qarayo qur-aan ku taala. haddaad maxaa gabadhana nin kuna waa 4 dumar u guursadaa, gabadhana 4 nin loogu diiday, deetana waa iska kaa tegaya. aduu su-aashaa weligaaba hore umaad maqal haddaan jawaabna u garan maysi. ma jawaab ma lahaba? maya, kutub baa laga qoray. hadi lmasala waxda habaa kutub laga qoray. laakiin adigu dee horena umaad baadhin, haddana kuuguma jirto. saa daraaddeed wayna tidhahaa wallahi xuquuqda bini aadamka mala muslimku meel buu kaga dhacaya. waxaa lagu odhan doonaa
muslimiintu intay maxkamad dadka taagaan bay qof baa dil lagu xukumaya. bini aadamnimadana in dadka la dilo maaha. maalin walba adiga su-aal baa lagu weydiin doonaa, su-aashana jawaab ma haysid. jawaabtu kitaabkan boordka la haydin dhexda yaalla halkaa saarsaaraba ku jirtaa. laakiin no one isku dayay. waxay yidhahdaan qur-aanku waa kitaabka dunida ugu akhriska badan leh ee loogu fahamka daran yahay. haddana waa baryaba waa la akriyaa. dee imsaa dunida maanta muslim tukadaa soo dad badan maaha. qof kastoo tukadaa soo faataxa iyo qur-aan kale ma akrinin. kitaab maalin kasta intaasoo dad ay akridaa dunida ma yaallo. walaa bible laku dhaho kitaab waa baryaba intaasoo bini aadam intay usoo fadhiisato ay akridaa ma jiro qur-aanka mooyaane. laakiin inta akrida imisaa faatixada macnaheeda taqaana. soo faatixada mada akridaan yaa fasiri karaa imka haddaan idin idhaho yaa garanaya faatixada macnaheeda. kullu yomna waxa laga yaaba inaad salaad kasta tukanaysay. ilaahay baad maalin kasta la hadlaysay, waxaad kula hadlaysayna maad garanay. ilan qofka mu'minka markuu istaago ilaahay buu la hadlaya, ilaahay abuurtay, ilaahayna wuu kuu jawaabaya. haddana waxaad kula hadlaysa garan maysid. waxbaad weydiisanaysaa, waxbaad u sheegaysaa, waxbaad kula hadlaysaa, wixiina garan maysid. idan mashkiladdu maaha inaan jawaabaa lahaynin. mashkiladdu waxa weeyaan diinkaynu ka fogaana, waynu durugna, dhowr qarnaynu sii soconno sii durkayna. waxaynu u baahanay renewal. waxaynu u baahanay inaynu dib u cusboonaysiino. waxaa u baahantay in caqaaridiina inaad dib u cusboonaysiisa. waxaad muslim u tahay inaad baratid. waxaad ilaahay u rumaysantay inaad baratid. waxaad qur-aanku kitaabkii alle kuugu yahay inaad baratid. waxaa nebi maxamed rasuulkaagu u yahay calayhi salaatu wasalaam inaad baratid. kan labaad waa camal saalixa. qur-aanku wuxuu inooga baahan yahay camal saalixa. camal saalixi waa dhaqan iyo diin. acmaasha saalixi way kala weyntay. arkaanta ugu weyn salaad, soon, zako. innaga salaadeenu maanta waxay ku jirtaa maxay? qiira qiire. badhna dadka way tukadaan, badhna ma tukadaan. su-aal qur-aanku weydiiye. shaqadiisa imse qof baa ka habsaama? intii aad shaqaynaysa imse maalmood baad habsaanta? yacni maalin aada xanuunsatay ama balaayo kale ku qabsatay ama jam intaad gashay aad kuwii shaqada la hadasho tira waa soo socda gabadha ay xanibtay oo jidkaa kusoo jira. su-aalkaa maaha. imse maalmood baad salaad subax ka seexatay? maxaa u dhexeeya inaad 5 kacdo ama 6 kacdid iyo inaad 7 kacdid? maxaa u dhexeeya? 1 hour. su-aalkaa maaha. 1 hour kani waa sidaad u seexataa buu ku xidhan yihi. markaad shaqo leedahay 4 gelaysid waxaad sii seexataa maxay? fiidkaad sii seexataa. 3 mobile waad buuxsataa. waddanka hore aad ka dheeralowdo sanadka labaad uga dheeraleed. laakiin salaada subax intaa ma u samaysaa? yani waxa weeyaan salaada iyo shaqada iyaba kugu agtaada qiimo badan. salaada waxay kuula muuqataa minor case, waxyaabaa iska fududa insha allah barigaa tukada duhurkaan raacin doonaa baad leedahay. shaqadu laakiin dee ila ninkii gaaladuu kusoo eriyayahay waa inaad excuse-yadu ma leh. idan nolosha waxaynu taaganay waxa weeyaan war diinkeenu qiimuhu inala leeya agteena waa qur-aanka. laakiin ilaahay markuu inala hadlayo matalan salaada waxaa layna yidhi haddaad dagaalka ku jirtaan oo salaadu ay soo gasho jamc ku tukadaa laynoo sheegay. hadda waa dagaal baa lagu jira, markaasaa la sheegay jamcu siduu u kala tukan doono. haddaad wax eriyeysa baa lagu yidhi dagaal baad ku jirtaa, ciidankii baad jabay oo ad eryanaysaa, adoo eriyanaya tukaa lagu yidhi oo xabadda ridaya. hadday salaadu soo gasha baa lagu yidhi iyadoo lagu eriyanayana tuko iyadoo lagu eriyayo. waa laydin jabiye waa yaacaysaa salaaddii laakiin way soo gashay, adoo ordayaad hadda tukanaysaa. idan waxaa la yidhi wakti ay kaa haraysaaba ma jirto. nabi maxamed markay naftu ka baxaysay calayhi salaatu wasalaam ee uu hadlayay erayadu muslimiinta uu ku yidhi ugu dambeeyey waxay ahaayeen assalaa assalaa wamaa malakata iimaanukum. waroy salaad salaad iyo dadka gacantiina ku jira shaqaalaha diinaha. assalaa
iyo wamaa malakat aymaanikum waa waxay naftu kaga baxday nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waa wixii u dambeeyey uu kasii dardaarmo. laakiin inaga agteenna maxay ka tahay? qiimaheedu intuu joogaa? idan wax walba waynu qiimo dille. iimaankii qiimo badan ma leh, diinka barashadiisii qiimo ma leh, acmaashaysii waxa ugu horeysay salaad baa sidaa u liidata, zaka ku xigtay, xaj baa ku xigay, soom baa ku xigay, waxbaa intaa wixii ka baxsan ee diin ahaana xalaal lahaa ee xaaraan lahaa. soomaaliya markaad joogtay doofaarku muxuu kula aha? aada u fog. laakiin markaad lagu ihahdo war maalka doofaar baa lagu dara iska daa naga daa waa iska cabayna ay doofaarku ma lahayn naga maaha indhaas kusii qabanaysaa. yani waxa weeyaan diinkeeni oo dhan baa fududaaday. markuu fududaaday ayaynu leenahay ilaahay muxuu inoogu gargaari waayo oo ilaahay maadaynaan xaggiisaba ukacaynin ma gargaar badka sugaysaa. yani ilaahay subxaana wa tacaala markaad rumayso ee dhab u rumaysid, kuwii dhab u rumeeyey nabi muuse ilaahay wuxuu tilmaamayaa, qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa in gaala soo eriyatay oo uu badisa soo dul taagay oo qoladii la socotay tidhi inaa la mudrakun waana la soo gaadhay oo uu nabi muuse yidhi kalaa ina maciya rabbi sayahdiin, aniga layma soo gaadhin, ilaahay baa ila jira, isagaana wadda ii bixin doona. ilaahay muxuu ku yidhi anadrib bicasaaka albaxra fanfala, usheed sidata badda ku dhufa baa la yidhi. dabeetana baddaa laba noqotay baa la yidhi. baddu intay laba noqotay meel dhoobaa miyuu kusoo baxay? maya dariiqa yabasa baa ilaahay ku tilmaamay, jid engegan. waayo baddanna ilaahay isagaa lahaa, fircoonna isagaa lahaa, muusena isagaa lahaa. muuse markuu raacayna baddaa loo kala jeexa. dadkii ilaahay rumeeyey nebi yuunus baa ilaahay qur-aanka inooga warramaya oo kalluun liqay oo badda kalluun ku liqay oo haddana laga soo saaro badda la keenay, xeebta la keenay. yani ilaahay raaci maayo, guushiisana waan doonayaa, hadduu guushaysiin waayana waan cabanayaa. dee hadeerayala socon mayso. waxaynu u baahanay markaa tajdiid uliimaan. dariskaan rabo inaynu ka wada hadalla waxa weeyaan waan iimaankan inaynu cusboonaysiino. inaynu khamri cabno ama zinaysano ama ka ku dhacno ama waxa ku dhacno, waxaasoo dhan waxaa ka sababa dacful iimaanka inagu dhacay. hadduu iimaankeenu xoogan yahay zinada waynaga celin laha, hadduu iimaankeenu xoogan yahay khamriga waynaga celin laha, hadduu iimaankeenu xoogan yahay xaaraanta waynaga celin laha, hadduu iimaankeenu xoogan yahay dad jira baynu noqon kari lahay. laakiin maanta waxaa adduunka oo dhan aynu noqonay dadaan magac iyo maamustoona lahayn, dad liita oo meel walba baryo la taagan iyo qaxoonta amni hana la aqbalo iyo waxana la siiyo. waxay naga dhigay ma aha wax kaloo dhan, waxa weeyaan waxaynu ka tagnay wixii rabbi inoo soo dejiyey. ayuha alaxiba, waxaan jeclay inaynu waktiyada soo socda haddii alla yidhaha si xoogan uga wada hadallo. markaas see baa iimaankani u xoogoobaya? see bay u dhici kartaa markaa inaad zine iyo khamri iyo baabkan ka bixi kartid? see bay u dhici kartaa in iimaankaagu yaqiintaadu ay gaari karto inaad rabbigaa kalsooni ku qabtid, inaad rumaysatid, inaad alqadaa walqadar rumaysatid? see bay u dhici kartaa inaad rajayso inaad aakhira badbaado? ilaa adduunka haddaad badbaadi weydo aakhirana shakay leedahay. markaa hadduu iimaankaagu adduunka wax tari kari waayo, aakhirana armuu waxba goyn kari waaya. idan waxaynu u baahanay inaynu dib isugu noqono oo qof waliba gaarkiisa uu fakaro. ninka baac mushtarka ahi habeen kasta waxaa laga yaabaa inuu xidho xisaab xidh, saxakaa maaha. ka laysiga ahi waxaa laga yaabaa usbuucii inuu mar eego bal shirkaddu xaggay u socoto. minimum bishii mar baa la sameeyaa maxay? xisaab xidh. sanadka hadday gaadhana mar baa la tootalgareeyaa la eegaa bal sanadkan maxaa la faa'iiday, maxaase la khasaaray. qofku hadduu wax faa'iidana wuxuu idhaahdaa halkaa kaga hayo sii kordhi, faa'iidadaa siduu kordhin lahaa buu ka fekeraa. hadduu khasaarana muxuu ka fekeraa? khasaaraha siduu uga bixi lahaa. ma tricks baa jira haddaad marto shirkaddu ay dib u dhismi karto, bise konkuush baad gashaa, bahashan waad joojisaa iyo wax kale ayaad bilowdaa. tani mid laga faa'iidaya kara maayo. waxaynu u baahnay inaad dib u xisaabtantaan
nin walba isaga waxaas tidhaahdaa horta diintaadu miyay sii xoogoobaysaa mise waxaad u socotaa hoos baad u socotaa? hadday sii xoogoobayso saad usii kordhin lahayd baad ka fikera. hadday hoos u socotona dee waa inaad warning alarm ka bixisaa. laynka casi waa inu ku baxaa tidhaahdaa waxa kanimaha wax la wadi kare sidee baan isbeddel u samayn karaya. ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inuu xaqayna fahamsiiyo, inuu inaga dhigo kuwa diintooda barta oo fahma oo ku camal fala. dad dhalinyaro baa tihiin, dadkay hor fadhiya waa yeel mariya laba kama dhex badna, waa yeelka idinka dhex muuqda. dhalinyaraatay macnaheedu waxa weeyaan you can do everything. qofku hadduu dhalinyarayay macnaheedu waxa weeyaan wax kastuu qaban karaa, wax kastuu samayn karaa. jidhkiisii baa dhammaystiran, caqligiisii buu qabaa. therefore bini aadamku waxaanu samayn karin ma jiro. wax walba bini aadamku oo ku dadaalo wuu ka midha dhalin karaa. maanta wax kasta oo aada bilowdaan baa samayn kartaa. ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala kuwii hanuuna ee dariiqa saxa a qaada inuu inaga yeelo. sala allahuma calaa muxamadi wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.